kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad waxa halkan kugu soo gudbin doona xogihii u dambeeyay iyo xaaladda guud ee dalka hadii aan ku horeyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qaaday talaabo uu horey ugu dhiiran waayay madaxweynihii isaga ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulada Puntland sidoo kale Jubbaland iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay u soo direen ciidamo hubeysan kuwaasi oo wata hubka noocyadiisa kala duwan balse dawladda Federaalka Soomaaliya ay hawada dib ugu celisay isla markaana ku celisay halkii markii hore ay ka soo baxeen muuqaalkan ay idin kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale halkan idin kugu soo gudbin doona khilaaf xoogan oo ka dhashay talaabadii ay qaaday dawladda Federaalka Soomaaliya ee dib loogu celiyay diyaaradihii ku soo wajahnaa magaalada caasimadda Muqdisho kuwaas oo siday wafdi hordhac u ah maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waxa sidoo kale halkan idin kugu soo gudbin doona wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo weerar afka ah ku qaaday maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay kala hogaaminayaan Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe masaxba in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka badbaaday afgambi xilli uu ka maqan yahay dalka muuqaalkan ayaa qodobadaas oo dhan idin kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale halkan idin kugu soo gudbin doona dawladda Federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay hubka iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo ay wateen maamulada Jubbaland iyo Puntland tirokoob rasmi ah oo lagu sameeyay intay la ekaayeen hubka ciidanka dhammaan muuqaalkan ayaa idin kugu soo gudbin doona xogihii u dambeeyay hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan oo ku mahadsantahay daawashadaada aynu ku bilaabnay dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaaday talaabo culus oo ka dhan ah maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland xilli hawada ay ka celisay diyaarado ka soo kala baxay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalada Garowe kuwaas oo siday ciidan iyo sidoo kale wafdi hordhac u ahaa labada maamul goboleed ee kala hogaaminayaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani sababaha ee dawladda Federaalka Soomaaliya ay go'aankan u soo saartay isla markaana ugu dhaqaaqda ayaa ahaa in muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayeen ciidamada ee ka soo baxay magaalada Garowe ee Puntland ay ahaayeen kuwa si aad u hubeysan isla markaana watay hub casri ah kuwa loogu talagalay dagaalka isla markaana meelaha fogfog ee dadka looga toogan karo iyadoo sidoo kale ciidamo aad u tiro badan laga soo buuxiyay diyaarad kuwaas oo ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho sidoo kale ciidanka ee ka soo baxay magaalada Kismaayo ayaa iyaguna waxay ahaa kuwa dhammaan afka soo wada duubtay oo aan wajigooda aan la aqoonsan karin iyadoo arintaasi shako xoogan ay ku beertay dawladda Federaalka Soomaaliya markii horeba ay diidaneed in maamulada Jubbaland ay Puntland ay ciidamo ay kala soo degaan garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho balse warar hoose soo baxay ay sheegayaan in tiro kaliya loo ogolaaday inay la yimaadaan balse ay balantii ay ka baxeen maamulada Jubbaland iyo Puntland ayna ciidamo fara badan iyo sidoo kale hubkoodii ay saakay soo saareen diyaarad iyagoona sheegay inay hordhac u yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxayna ciidamadan ay u muuqdeen kuwa u soo diyaar garoobay dagaal iyadoona laga cabsi qabay in markii ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho oo halkaasi uu ka dhasho dagaal sababa khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyadoo garoonka aadan cadde waxyaabihii ka dhici lahaa ay dawladda Federaalka Soomaaliya ay ka badbaadisay talaabada ay qaaday dawladda Federaalka Soomaaliya waxa si adag ugu hor yimid maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ah maamul goboleedyadii diyaaradahooda dib loogu celiyay waxay soo saareen war-saxaafadeed iyagoona si adag u cambaareeyay dawladda Federaalka Soomaaliya iyagoona eedda dusha ugu tuuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadii aan ku hormarno maamulka Puntland war-saxaafadeedka uu soo saaray iyo si adag ugu cambaareeyay talaabada ay qaaday dawladda Federaalka Soomaaliya ee dib loogu celiyay diyaaradii ka soo baxday magaalada Garowe ee siday ciidanka iyo sidoo kale wafdigii hordhac u ahaa war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka ee Puntland ayaa waxa lagu sheegay in dawladda Federaalka Soomaaliya ay dooneysay sifa ay ku joojiso shirka iyadoona lagu sheegay in markii hore dawladda Federaalka Soomaaliya aysan aaminsaneen in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah maamul goboleedka Jubbaland uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in aysan ka soo qayb galaynin madasha ama gogosha ay fidisay dawladda Federaalka Soomaaliya kadibna lagu
lagu sheegay markii labadan maamul goboleed ay ka dhaweeyeen isla markaana ay rabeen inay ka soo qayb galaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay baajisay shirkaasi waxaana falkaasi ay ku tilmaameen qalqalgelin iyo sidoo kale in ay ka badbaadeen dil hal mar waxaan isla daawaneynaa Siciid Cabdullaahi Deni oo war-saxaafadeedka kadib hadlay isla markaana fariin adag u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya kadibna waxaan dib ugu soo laaban doonaa maamulka Jubbaland waxyaabihii uu ka yiri iyo sidoo kale weeraro toos ah ee hawada isku marinayeen qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka intiina halka fadhida kama warqabtaa saaca markaan garow ka soo baxnay ciidamadii hordhaca ahaa ee waftiga dowladda Puntland xamar uga qaybgal lahaa shirka lagu igmaday iyo howlwadanadii dowladda ee madaxtooyada oo maanta safar u galay oo dhex hawada maraya ayaa laga soo xigtay diyaaradda waxaa dhacay mas'uuliyad darro inta badan diyaaraduhu waxaad ogtihiin shidaalka meesha ay tagayaan marka dambe ka soo qaataan soo noqonaya diyaaradda hawada maraysaa dib loo soo celiyo waa fardambiye iyo isku day dib oo laga xisaabtami doono waqti laakiin inaan Soomaaliya xaaladda ka hadalno oo meel walba u tagno uga baaqsan mayno xabsi gelin waxaan idin sheegayaa Puntland iyo dadkeeda war dhow ayay wararkaas iyo wixii laga gudbo ka soo sheegi doonaa laakiin inta waa hordhac aan rabo inaad ogaataan maadaama hadda ay dhacday runtii waxaan rabay inaan farxad ula qaybsado laakiin maalin walba wax dadka Soomaaliyeed aan farxad gelinayn baa ficilada ah marka qaar ka dhacay abwaanka intuu yiri baa hadal dalkeena aan difaacano cadow muuqday midaan muuqan isku duubni baan ku difaacan karnaa bulsho meel isugu timid baan nahay oo kala aragta duwanaa siyaasadda mar walba way jiraysa xisbiyaa baa furan tartan baan u sameeya waxaan ku faraxsanahay isbedelada ay keentay dimuqraadiyadda garowaa waxaan soo maray dalka warihii deegaanka ee la doortay maayadkii saddexaad bay iska bedelay iyagoo dhexdooda isturxaamaya runtii waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada sida dimuqraadiga mar walba waan ogahay haddii aad daabatay muuqaalkan waxaa kaaga soo baxay hadalada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada markana waxaan aadnaynaa maamulka Jubbaland ayaa dhankiisa si adag uga hadlay talaabadii ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoona si adag loogu cambaareeyay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa si adag loogu cambaareeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya talaabadii ay qaaday ay ahayd mid qaldan isla markaana wax lagu xumaado lagu tilmaamay waxaa lagu sheegay in talaabada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay halis gelisay nolosha saraakiil iyo sidoo kale wafdi hordhac u ahaa maamulka Jubbaland iyadoona lagu sifeeyay in marka hore dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan hubsanin diyaaradiisa inay haysatay shidaal ku filan oo ay dib ugu laaban karto halka markii hore ay ka soo duushay war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Jubbaland ee gaar ahaan madaxtooyada ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya dhawaanahanba ay raadinaysay marmarsiyo ay ku baajiso shirkaasi haddana ay doonayso in shirka ay baajiso waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka ee Jubbaland lagu sheegay in Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirkaasi balse ay walaac ay ka muujiyeen hanaanka shirkaasi loogu qabanayo magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo markii hore labadaas maamul goboleed ay ka cagajiidayeen ka qaybgalka shirkaasi waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka gabagabadiisa fariin adag loogu diray beesha caalamka iyadoona loo faray ama basi wada jir ah maamulada Puntland sidoo kale Jubbaland ba fariin ugu direen beesha caalamka in ay soo farageliso arrimaha xilligan ka taagan gudaha dalka Soomaaliya
markana haddii aan dhankiisa aan adno wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhankiisa weerar afka waxa uu ku qaaday maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland kadib markii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay qaaday talaabo ka dhan ah maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyadoona talaabadaasi kadib maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay kula hogaaminayaan Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku cambaareynayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya war qoraal uu bartiisa soo dhigay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu si toos ah ugu weeraray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani war-saxaafadeedka ka soo warka qoraalka ee uu soo dhigay bartiisa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu ku sheegay in maamul goboleedyada markay u safrayaan Itoobiya Addis Ababa iyo Kenya ay sida qof shacab oo kale ay galaan safaf ay ka galaan immigration-ka isla markaana ay qaataan borso oo kaliya balse markii ay doonayaan inay soo gaaraan magaalada caasimadda Muqdisho ay soo dirsadaan ciidamo hubeysan sida in ay dagaal u socdaan oo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markii caalamka ay mas'uuliyintooda imaanayaan gudaha Soomaaliya amnigooda ay sugaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya taasi bedelkeedana maamulada Jubbaland iyo Puntland ay doonayaan in intaysan imaanin ka hor ciidamo hubeysan ay soo diraan kuwaas oo u muuqda in ay dagaal u socdaan in kala aan la kala garan karin waxa uu si cad fariin ugu diray labadaas maamul goboleed Jubbaland iyo Puntland isagoo faray in ciidankaas iyo sidoo kale hubkii ay wateen loogu talagalay inay kula dagaalamaan cadowga wixii xoogo ee ku soo kordho ee la xiriira khilaafka xoogan ee soo kala dhaxgalay maamul goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya muuqaaladan xiga ayaa idin kugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhigan balaalka furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo saar si uu gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada